dowladda dalka Sacuudi Arabiya oo hore uga mamnuucday inay dadka ajaanibkii soo cumraystaan ayaa hadda ku dhawaaqday inay sidoo kale hadda ka mamnuucayso dadka u dhashay ee dalkaasi ku sugan. Sacuudi Arabiya ayaa isniintii shaacisay in qofkii ugu horreeyay ee dalkaasi ku nool laga helay cudurka coronavirus, kaasi oo ahaa qof booqasho ku tegay dalka Iran balse aan shaaca ka qaadin. Kadib tala soo jeedin guddida loo xil saaray la socoshada cudurka coronavirus-ka ay soo jeediyeen, waxaa la go'aamiyey in la joojiyo cumrada muwaadiniinta boqortooyada. Waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal la soo dhigay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya loo yaqaano SPA. Go'aankan ayaa si joogto ah dib loogu eegi doonaa, waxaana laga yaabaa in wax ka beddel lagu sameeyo haddii xaaladdu isbeddesho, sida lagu sheegay qoraalkaasi lagu qoray wakaaladda wararka Sacuudi Arabiya SPA. Dadka Sacuudiyaanka ah ayaa weli booqan kara masaajidka xaramka iyo sidoo kale masjidka Nebiga calayhi salaatu wasalaam si ay salaada ugu tukadaan. Toddobaadkii tegay ayaa dowladda Sacuudi Arabiya ay hakisay cumrada iyo dalxiiska ay dalkeeda ku iman jireen ajaanibta dalalka uu ku fiday cudurka loo yaqaano coronavirus ee halista badan dunida ku haya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saartay hore ugu sheegtay inay hakintu tahay mid waqti kooban ah, hase yeeshee may shaacin xilliga ay ku eg tahay. Ma cadda in go'aankani uu saameyn doono xajka oo sanadkan ku beegan dabayaaqada bisha Julaay. Cabdulqaadir Codhoon, Cable TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.